dosage baa jira aminoglycosides ku leeyihiin dosage-ka waxaa ka mid ah gentamicin waxay leedahay IV intramuscular bay leedahay waxay u jirtaa 10 40 80 milligram ml yani waxay inta badan IV bay u badan waxay u badan tahay wax yani bacterial bay badan tahay erythromycin intramuscularka laga mudaa intramuscularka laga qaataa micnaha 400 milligram bay u jirtaa amikacin iyadoo IV iyo IM bay u jirtaa 259 milligram bay u jirtaa iyadoo VLS ah oo yani quraarada ah yani la jabinayo oo quraarada ah nimycin iyo nimycin-tuna waa bioral nimycin-tu waa bioral oo inta badan waynu ku aragnaa farmasiyadeena waana 500 milligram tablet marka aan waxaan soo qaatay inta available ka inaynu soo yar qaadanay dose-kooga ay noo yaala marka inta caankaana waan soo qaatay marka iyaduna waxay nimycin waxay u jirtaa bioral 500 milligram tablet 225 milligram base 5M solution marka inaan isla fahanay baan jecelahay intaba waxa laga yaabaa hadii aad farmasi tagto iyo hadii aad Google-ahaba ku qorto inaad hesho dhamaantood milligramska u jiraan waxa dhici karta oo aan ka araaranaya in yani kooni jiri karaan iyaga oo roots-ka laga qaato marka saayn ku ogaano side effect-ga ay leedahay waxa kamid ah nephrotoxicity yani inuu kalidu renal toxin ay ku dhacaan toxins ay ku badato ama toxin ay saameeyaan ama sumoobiyaan kalida ototoxicity-ska inuu qofku macnaheedu dhagu yani ay toxin ay ku badato neuromuscular blockage waxa la yiraahdo in neuronka muscularka ku jira ama muruqa ku jira uu blockage ku dhaco ama uu xidhno deedna qofka yani muruqiisu uu adkaan yani muruqiisu shaqeyn waayo blockage marka ku dhaco neuronki waxa dhacaysa inuu imbalance-ki uu diri waayo qofku yani mararka qaar kood isku arko isaga oo yani gacantii dhaqaajin karin marka waxyaabahaas oo kalena quinolones-ku markale waxaan oranaa quinolones-ku waxa loo yaqaan quinolones maxaa yeelay waxa laga keenaa baa lagu leeyahay fluorine atom ama fluorine atom ba structure-keega ku jirta marka waa strong heavily bactericidal waa bactericidalka ku ugu xoog waaweyn leh actions marka la eegayo waxaanay ka hortagtaa gram negative iyo gram positive ka in ka mid ah gram positive iyo gram negative ka marka sababta hadii aynu nahay gram positive gram negative labadaba hadii uu ka hortagayo waxaas waa bactericidal waxaana weeyaa high concentrated kidneys-ka marka waxa la yiraahdaa hadii ay high concentrated kidneys-ka hadii yihiin qaar concentration-kooga ama ribanaantooda ku badantay kalida waxaan oranayna waxay ku fiican UTI treatment ama in urinary tract infection-ka lagu daweeyo mechanism of action-ka ama halka ay wax ka abaarayso ama mechanism-ka ama halka ay qabs dawadani ka shaqeynayso wax kale kama mas'uul ah enzymada yani ku jira yani replication-ka markay dhacayaan DNA-da ayuun bay iyagu xirayaan ama ay meesha ka saarayaan ama ay antagonist ku noqonayaan ama ay cadow ku noqonayaan in ay sameysmaan ama ay u tagaan replication isku xiligu dhacayo marka kadib waxa dhacaysa waxa la yiraahdo cells inuu yani meeshii de marka la sameeyo way DNA in meeshii cells yimaado ama uu cell-ku ba dhinto therapeutic-iska loo isticmaalo waxa kamid ah bone and joint infections-ka ay sababaan gram negative-ka yani bone yani lafti joints-ka yani xaglaha ama iskoosyada infections-ka ku dhaca in ay waliba gram negative-ka ay sababaan in loo isticmaalo infections-ka dhaariyada ay keento ama infections dhaariyada yani infections-ka dhaariyada keena bacillus dysentery-ga typhoid fever-ka iyagana loo isticmaali karaa ama typhoid-ka waxay noqon UTI infections-ka waa loo isticmaala urinary tract infection-ka ama in UTI urinary-ga yani inta urinary-gu soo maro infections-ka ku dhaca iyaga laftirkooda waa loo isticmaali karaa aynu bal wax yar isla fahan intaynu ka boodno matarasoolka marka
quinolonesku waxa weeyaan interactionka topoisomersku samaynayo. tusaale ahaan enzymeka la yidhaahdo topoisomerku wuxuu ka mas-uul yahay unwalling iyo unlinked inuu sameeyo DNA-da ku sameeyo ama inuu kala jaro. markay replicationka uu samaynayso bacteriyada ama wax kasta oo replication samaynaya, DNA grace iyo topoisomersku waa laba. marka ka hor buu kala DNA-da uu kala jaray DNA graceku ka hor, kadibna waxaa topoisomerku dib uu kala jarayo unwalling buu sameeyay. marka primary targetingka ay qabsadaan waxa weeyaan inay labada enzyme inactive ka dhigaan ama inhibition ku sameeyaan. marka blockage DNA-dii synthesiskii baa meesha ka xirmaya. marka cell death baa imanaya. cell death markuu imaado waxaynu sugaynaa meesha in ay aan bacteria yani aan la soo saarin protein synthesis. marka protein synthesiska waxa ku jira structure la yiraahdo fluoroquinolones. marka quinoloneska gibiga waxa ka kooban structure fluoroquinolones waxa kamid ah ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin iyo norfloxacin iyo ofloxacin ama ofloxacin. waxa jira drug list ama drug list waxa la yiraahdaa inta daraaga ku jirta yani groupkan fluoroquinoloneska ama quinoloneska. ciprofloxacin baa ku jirta, norfloxacin baa ku jirta, ofloxacin baa ku jirta. ofloxacin, norfloxacin iyo ciprofloxacin saddexdaas ugu caansan dalkeena inta badan aynu isticmaalnaa. levofloxacin, getiofloxacin iyo gimofloxacin ama gediofloxacin ama gimbifloxacin labadaba waad oran kartaa. drug dosageka ama dosageka ama xaddiga la qaadanayo drugska. markaas ciprofloxacin by oral iyo waxay ku jirtaa IV-na way ku jirtaa. marka waxa la yiraahdaa 500 mg ayaa la qaadanaya every 2 hours yani 2 times a day. IV-gana 200 mg ilaa 100 mg infusion iyaduna way u jirtaa. norfloxacin iyo norfloxacin waa by oral waxaana u jirtaa 400 mg waxaana la qaadanaya 2 times a day. ofloxacin iyadoo by oral way u jirtaa, IV-na way u jirtaa 200 mg markay by oral ka tahay 400 mg weeyaan 2 times waa la qaadanaya. IV-gana iyada waxa la sameeyo waxa u jirtaa 200 ilaa 40 mg infusion ah. side effects ay leedahay saddexdii aynu isla naqaanay nausea, diarrhea iyo vomiting. vomiting ma hadda ka hadhay oo nausea iyo diarrhea way yeelan karaan labadoodu. insomnia hurdo la'aan qofku yeesho, fatigue and plasma qofku inuu daal iyo farxad la'aan dareemo, rupture tandamka ciyaalka xilliga tandamku inuu rupture ku dhaco waliba ciyaalka la leeyahay waayo iyaga tandamkooga ayaa jilicsan. marka mararka qaar ku rupture baa dhici kara ama inuu qarxo rupture-ku ama inuu go'o. macrololiska waxa loo isticmaalaa pulmonary infection-ka inta badan. deewana bacteria static inta badanna waxa la yiraahdaa deconcentration-keega kor loo qaado waxay noqon karaan bactericidal. marka waxay ku xidhan tahay in ay noqoto bactericidal in concentration-ka ka kooban tahay dawooyin kor loo. erythromycin waxa la yiraahdaa inta ugu badan qaarkood waxa lagu qaataa antibioticska in empty space stomach yani inuu caloosha marnaato. inkastay book la yiraahdo Kaplan uu leeyahay laguma qaadan karo antibioticska way waxa formkii ay dawadu u samaysneed bay isbedelaya marka ay sii dhow la kulanto ama reaction baa barta ka dhacaya. laakiin buugta Livingston wuxuu leeyahay ama inta badan la leeyahay in lagu qaato stomach yani oo maran marka laga reebo erythromycin taas oo sababta severe gastrointestinal distress yani calooshu in cramps badan samayso in ay samayso oil badan. marka waa in wuxuu leeyahay waxa waajib ah in lagu qaato with food. marka take with food marka wuxuu leeyahay ku qaata cunto. marka qofku yani haddii uu calooshiisu maran yahay inay sababta laga yiraahdo cramps ama severe gastrointestinal distress. marka way ku kala duwan yihiin labada buug. marka anigu markaan qaatay labada buug waxaan raahdaa qofka inuu cunto ku qaato waliba cuntadaas oo reaction la tarshanayo
doctorka ama uu yani waxaa jirta dawooyin aan laga qaadan proteiniska, dawooyin aan laga qaadan cuntooyinka. Marka waxaan kula taliyaa in doctorku mar walba uu sameeyo yani la tashi uu la sameeyo cunto nooceeyaan cunaa markaan dawadan qaadanayo, cunto sideeyaan ayaan ku qaataa dawadan marka aan isticmaalayo. laakiin erythromycin-tu waa waajib in lagu qaato, haddii kale waxaad la kulmay severe intestinal distress. marka waa inaad ku qaadataa cunto ama cunto inaad cunto haddii liqdaa dawada. mechanism of actionska waxay xidhaa growthinka bacteriada ay sameynayso, waxaanay ka xidhaa uun block protein synthesis in la sameeyo borotiino, intaas ma xidhaa. marka waxaa ka mid ah erythromycin, clarithromycin iyo azithromycin. erythromycin, clarithromycin iyo azithromycin. in haddii la xidho primary 5 subunitska meel u dhow baptist transferka, deedna exitka ay ka baxayaan baptisku oo ay out of ribosomeska ay ku sameyn lahayn ama ay ka bixi lahaayeen, oo markaana la xidho inhibition elongation processka ama la xidho elongationku habkii uu dhici lahaa, meesha waxaa loo bacteriostatic waxa la yidhaahdaa baa dhacaya in wixii laga xidho bacteria proteiniska inay samaysato. marka waxaa ka mid ah azithromycin, clarithromycin, erythromycin iyo vancomycin. waxaan isla yar eegi doonaa bal sida proteiniska iyo ay u samaysmo. marka hore waxaa lasoo saaraya DNA baynu haysanaa. marka DNA haysana waxaa lagu sameynaya RNA synthesiska. marka lagu sameeyo waxaa laga faa'iideysanayaa deena dib in lasoo saaro messenger RNA. messenger RNA ayaa lagu sameynaya maxay tabletkan aad aragtaan RNA. marka waxaa la oranaya transcriptionka RNA-da lagu soo saaraa. marka copy bay soo sameynaysaa. marka copy lasoo sameeyo waxaa translation baa dhacay. translationkuna 3 marxaladood buu maraa. marka hore initiation lagu sameeyo, elongation iyo termination. marka protein baa soo baxaya. proteinsku marka soo baxayo translation baynu odhan. hababkaas ayuu khalkhalinayaan dawooyinkan inta badan aynu ku guda jirno marka laga reebo cellulose.